الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سيديداد يا كتاب كني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله wuxuu sheekhu ka hadlay wax lagu magacaabay ciwaan looga dhigo awoodaha qofka gacanta ku siiya khayrka maxaa ka mid a waxaa ka mid ah dikriga ilaahay oo la badiyo qur-aanka dikriga ilaahay ugu horeeya tasbiixdii tahliishii taxmiidii wixii yani dikrigu waa tiro badan yahay yucti daakira quwa daakirada oo xusuusta iyo xifdigaba awood buu siinayaa dikriga haddaad badiso ilaahay awood baa waxaad u helaysaa xusuustaada iyo xifdigaaga intaba waxaana suuragala baa laydhaha qofka inuu ku awoodo wuu karayaa oo wuxuu ilaahay ku waafajinayaa dikriga waxuusan maa laa yutiiqu ficlahu biduunih wax la-aantii aadan awoodeen buu alla subxaanahu watacaala dikriga kugu siin sheekhu wuxuu ku sheegay macluumada kitaabkiisii alwaabil asayib min alkalimi ayib waxaa ka mid a oo kale waxyaabaha macluumaadka sheekhu soo gudbiyey waxa la yidhaahdo xasrada alxasra waa qoomamada iyo tiraanyada iyo qofka oo iscuna yacni waxyaabaha sii adkeeya waxaa ka mid a waqtiga oo kaa dayacma falwaqtu waqtigu wuu soconayaa sidiisu u dhammaan wuuna tegayaa wuuna ku dhaafayaa qofka marka halmaama naftiisa la yidhaahdaa waqtigiisiina wuu tegayaa faa'iidadii badnaydna way dhaafaysaa xasaraadkiisi iyo qoomamadiisuna way badanaysaa wuxuu sheekh ku sheegay kitaabkiisii madaarij assaalikiin ayuu macluumadana ku xusay waxyaabaha qofka uu ku dhaco ugu dhib badanna waxaa ka mid a waqtiga oo kaa dayacma waxaa ka mid a macluumaadka sheekhu soo gudbiyey wuxuu yihi waxaad ogaataa addoonku faclam ana alcabda inamaa yaqطacu manaasila asayri ila allahi biqalbihi wa himmatihi laa bibadanihi bal u fiirso qofku meel wuxuu ku gaadhaa uu arinta wanaagsan ku haleelaa hadday tahay waxbarasho hadday tahay cibaado hadday tahay khayr wuxuu ku gaadhaa qalbigiisa iyo himadiisa hansare inuu ruuxu leeyahay laakiin badanka iyo jidhka waxba ma ah yatiiru da lqalbi laysa aljismu walbadan jismiga jirhkaaga iyo maqaarkaaga waxba ma ah waxaa lagu socdaayay waa himada qofka sare iyo qalbigiisa ayuu qofku meel ku gaadhaa ayib wuxuu sheekhu ku xusay macluumada kitaabkiisii fawaaid kitaab ladhaha fawaa'id alfawaa'id ayuu ku xusay macluumada ah waxaa ka mid a macluumaadka sheekhu soo gudbiyey wuxuu yihi waman ansafa nafsahu wacarafa acmaalahu istaxyaa min allahi an yuwaajahu bicamalihi bal u fiirso qofka insaafku waa qofkii garsoor sameeya oo si dhab ana acmaashiisa u ogaada yani maanta maxaad qabatay seed u cibaadaysatay maxaad baratay maxaad bixisay maxaad khayrkii qofkii sidaa isu fiiriya oo insaaf iyo garsoorna ka shaqeeyay wuxuuba ka xishoonayaa inaad allah subxaanahu watacaala la qaabisho camalkaaga bimacnaa wuu kula yaraan waxaad samayso oo dhan wuxuu u arkaysaa haddaad si dhaba meesha ay dadka qaar oo kale waxoogaa hadday caawa sameeyaan ama salaad ay tukadaan iyo xalay waan shaqaystay xalay kanaan qabtay maanta hadduu soomo waan shaqaystay hadduu waxyar bixiyo oo maaragtay sheegayo wixii waan samaystay waxaa la rabaa nisyaan baa la yidhaha in la halmaamo waxa aad samaynaysa iska halmaan ayib sheekhu wuxuu ku sheegay macluumada ariiqulhijrata iska halmaan waxaan ka wadnaa yayna kula weynaanin waxbaan sameeyey iyo waxbaan hadhihin marka macluumada wuxuu ku sheegay ariiqulhijratayn wa baabu sacaadatayn kitaabkiisa ayuu sheekhu ku xusay waxaa ka mid a macluumo kale oo sheekhu uu soos u yiri falaa xikmata lijaahilin walaa طaa'ish walaa cajuulin wallahu aclam xikmad ma leh qof jaahili xikmad ma leh aljaahil
laa xikmata lahu, xikmad ma leh. qofka iska duulduulo oo marba meel ku dhaca ama wuxuu iska sameeyo oo isagana xikmad ma leh. qofka degdegaana xikmad ma leh. bimacnaa waxaad ogaataa waxaasoo dhani xikmaday ku dhaafinayaan. qofkii rasuulku sal alla alay wasalam alxilmu walinaa saxaabiga uu ku tilmaamay asxaabu rasuulillaahi, niman wafdi oo rasuulka mar u yimid, markay saa u arkeen bay soo kala carareen oo iyagoo hadda soo rafaaday oo jid dheer soo maro oo safar dheer soo maro, dharkoodii aad garanayso qabaysa aan jirino. marka ninbaa intuu isagoo ka degay baabuurkii ritigiisii iyo gaadiidkiisii, tartiib uu degay, issoo daahiriyey, maradii iska bixiyey, uu jidka kusoo maray, maryo kale oo u saaraa la soo baxay, ayuu u yimid rasuulka sal ly slam. rasuulku wuxuu yidhi, laba khislo ama laba arrimood oo ilaahay jecel yahaybaa yaad leedahay. laba arrimood oo rabbi jecel yahay ayaad leedahay. waa maxay? xilmi, waa dulqaad iyo inaa oo deganaan ah. deganaan iyo dulqaad buu ilaahay ku siiyey. marka waxaa la yidhahdaa alcajalatu min ashaytaan, degdeguna shaytaankuba. marka weligaa ha degdegin. haddaad degdegto wax walba wuu ku dhaafayaa, mana lagu waafajinayo, xikmad la-aan baana kugu dhici. ilaahay subxaana wa tacaala hayna xifdiyo, rabbina subxaana wa tacaala hayna ilaaliyo.